waxaa maalintii saddexaad si habsami leh garoonka Engineer Riso Ekis Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho kaga soconaya ciyaarta u dhaxaysa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Galabta ciyaarta ay ku baratamayeen maamulada Hirshabelle iyo gobolka Banaadir ayaa labada ciyaartooyba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan, waxaana labada dhinacba ay ahaayeen kuwo u diyaarsan sidii ay midka kale uga guuleysan lahaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhulka ku dhiftay dhigeeda maamulka Hirshabelle, waxaana guusha galabta gacanta ay u gashay maamulka gobolka Banaadir. Ciyaar muddo socotay kadib ayaa maamulka gobolka Banaadir waxay u suura gashay in mid kamid ah goolaha ay ka dhaliyaan Hirshabelle, balse Hirshabelle isku dayaysay in ay soo qabato amba ay ka aarsato goosha laga dhaliyay ayaanan u suura galin in ay iska difaacdo. Ciyaarta oo saacad ka badan socotay ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 1-0, waxaana Hirshabelle caawa ay la hooyatay natiijo la'aan, halka gobolka Banaadirna ay u dabaaldegayaan guushii ay ka gaareen ciyaartii galabta ka dhacday garoonka Engineer Riso ee magaalada Muqdisho. Taageerayaal fara badan oo ka tirsan kuwa gobolka Banaadir ayaa waxa ay isku marxabeynayeen guushii ay ka gaareen dhigooda Hirshabelle, waxaana ay ahaayeen kuwa inta badan aad ugu faraxsanaa guushii ay ka gaareen. Ciyaartan oo soo bilaabatay 20 bishan aan ku guda jirno ayaa waxaa lagu daafuray maamulada Galmudug iyo gobolka Banaadir, kuwaasi oo ismari waayay isla markaana ciyaartoodu ku soo dhamaatay 2-2. 21 oo shalay ku beegneed ayaa sidoo kale garoonka Engineer Riso magaalada Muqdisho waxaa ku baratamay maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxaana guuldarada dhabarka loo saaray maamulka Jubbaland kadib markii Koonfur Galbeed ay kaga adkaatay 1 gool. Ciyaartii maanta oo ahayd ciyaar aad u kulul ayaa waxa ay ku soo idlaatay lafteedu 1-0, halka Hirshabelle ay la timid eber, gobolka Banaadirna ay la imaatay 1. sidaasi ayayna ku soo dhamaatay ciyaarta. Haddaba si aad u daawataan aan idinku wareejiyo idaacadda ciyaaraha ee Astaan Sport iyo sida ay xaaladdu ahayd markii kubadda cagta ay isdhaafsanayeen labada ciyaartooy ee gobolka Banaadir iyo maamulka Hirshabelle. Hirshabelle gool kulaad ayaa laga dhigayaa xulka dowlad goboleedka Hirshabelle. kaarka jaalahana waa la siiyay ciyaaryahanka markaas lagu magacaabo Yuusufey oo ka mid ah difaacyada Hirshabelle. ciyaaryahanka lambarka 9aad ee xulka gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo Muuse ayaa u suura galiyay inay gool kulaad helaan xulkiisa kadib markii xidiga lagu magacaabo Cabdulle oo kubadaasi uu soo tuuray, waxa kala tuuray oo riday xidiga lambarka 2aad ee Hirshabelle laacibka markaas lagu magacaabo Cabdi Fataax Saadam Umar ayaa riday. kaarka jaalaha ayuu ku qaatay Cabdi Fataax Saadam Umar. Ayub Maxamed Cabdi Ayub xulka gobolka Banaadir ayaa hoggaanka ciyaarta qabtay. xulka gobolka Banaadir ayaa dhalinaya goolka koowaad ee ciyaarta. Hirshabelle waa loogu shubay. Banaadir gool. Hirshabelle 0. xulka gobolka Banaadir ayaa markaas dhalinaya goolka koowaad ee ciyaarta. sheekana waa 32 daqiiqo. Ayub ayaa u dhaliyay gool kulaad aad u qurux badan ee jooga hoose ku socoto xulka gobolka Banaadir. Ibraahim Mascuud ayaa soo tuuray kubadaasi. markan weerar ay sameeyaan waa kan xulka gobolka Banaadir. Muuse misbiaj Muuse ayaa kubadaasi laga saaray. gool ayaa Jeelaani Cali Macow ayaa si qurux badan ugu badbaadiyay. mar kale waxay ayd fursad halisa. Muuse ayaa ku gamay darbe xoogan. gool ayaa bixintu sii bixinay birta ayay ku sii dhacday. dhan kasta waa laga fadhiyaa, ma jiro fursad ka banaan. Banaadir markan waa kan Wakaroos ayaa la sameeyaa fursad fiican. Muuse gool ayaa Jeelaani Cali Macow ayaa fursadii labaad ka badbaadinaya laacibka lambarka 9aad ee Muuse Xuseen Cali, laakiin waa ay socotaa ayuu leeyahay sagaalka ciyaarta. waa advantage markan fursad fiican Hirshabelle afka hore dirinta ganaaxa. Hirshabelle waa kan ugu dambeyn waxa leeyahay waa gacan tuur, waxaana soo tuuran doona xulka gobolka Banaadir ayaa dhankooda loo wadayaa. ay sugi doonaan natiijada Hirshabelle iyo Galmudug oo ciyaari doona. Yuusufey markan waa soo tuuray, ugu dambeynna qaybta sare ayay martay. qaybta hore ciyaarta ayuu soo ileeyay garsoore Cabdi Fataax Saciid Mire, waxaana qaybta hore ciyaarta lagu kala nasanayaa gool ay leedahay gobolka Banaadir iyo Hirshabelle oo aan wax gool la dhalin. agaag saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan. waxaa dib lisku soo laabanaya 45 daqiiqo oo shaqo badan u baahnaan doonto. 45 daqiiqo isbedel Hirshabelle raadin doonto. 45 daqiiqo Banaadir difaac adag ee samaysan doonto, isla markaana qaybta labaad ee ciyaarta ay kula dagaalami doonaan. Hirshabelle markan Cumar Bashiir ayaa iska soo saaray kubadaasi. waa lagu la dagaalamay.
banaadir markan weerar ayay samaynayaan ibraahim waa kan si wacan ayuu u baasay banaadir markan weerar ayay ku jirtaa fursad fiican idris banaanka muuse laakiin waa laga badbaadiyey kubaddaasi halista badan hagaag markan hirshabeelle lambarkeeda labaad ee difaaca ahna hogaamiyaha xulka waxa uu ku dhufsaday saaxiibkee weli cabdinaasir waa kan waxa uu ku xidhay saaxiibkee trubas ayaa la sameeyey fursad fiican markan cabdinaasir trubas fursad fiican hirshabeelle xulka gobolka banaadir ayaa markaasi laga dhaliyey goolka barbardhaca laakiin waxaa la leeyahay waa garab dhaaf ama offside ayaa la leeyahay trubas ayaa la siiyey markii kubadda xasankaafe uu ku dhufsaday cabdinaasir ayaa truma wacan bixiyey laakiin trugu uu bixiyey cabdinaasir waxaa qabsaday ciyaaryahanka lambarka 20aad waa lambarka markaasi banaadir ayaa haysata kubadda ayuub waa kan markan wuxuu ku xidhay saaxiibkii cabdirashiid waa uu dhigay meel wacan ayuu dhigay weerar ayay samaynayaan gobolka banaadir waa la cunay markan afka hore dilinta ganaaxa fursad fiican no jeelaani cali macow si qurux badan ayaa difaaca hirshabeelle loo soo cunay ugu dambeynna iyagaa qabsaday idriis ayaa haya idriis waxa hordhigay saaxiibkii waa kan markan muuse waxa uu ku xidhay xaaji ayaa dhaqaaqaya markan muuse ayuu dhibay muuse waa kan fursad fiican muuse waa kan waxa uu ku xidhay isna saaxiibkii waa tan markan banaadir fursad daabiya xulka gobolka banaadir ayaa helay goolkii labaad fursad ay ku dhalin karaan laakiin ma aysan noqon inay dhaliyaan weerar ayay samaynayaan markan axmed xasan xuseen waa uu galay afka hore fursad fiican gobolka banaadir waa iska soo difaaceen kubaddaasi weli iyaga haya banaadir markan kontraataag ayay samayn karaan laakiin waa laga qaatay hirshabeelle markan qaybta sare ayuu marsiiyey dhaxda ayay kubaddi taal weerar ayay samaynayaan hirshabeelle waa la soo dhigay afka hore fursad fiican weli waa kan xasankaafe gooshin waa uu ka khasaariyey fursaddaasi waxaa haya markan ciyaartooyda weerarka ee gobolka banaadir daadir jalla waa kan waa uu turtay jalla waa uu galay waa uu dhaqaaqay weli isaga ku jira linaaya dishata daadir banaanka fursad fiican banaadir misbiyaaj way iska khasaariyeen xulka gobolka banaadir xaaji ayaa ka marsiiyey qaybta sare dhammaadka ciyaarta ayaa ku sii dhowaanaysa 8 daqiiqo qura ayaa ka hartay 8daasi daqiiqa banaadir waxa ay doonayaan isbeddel jalla ayaa ka turtay difaacyada waxaana uu la galay linaaya dishota ugu dambeynna bannaanka ayuu soo dhigay saaxiibadii laakiin xaaji ayaa qaybta sare marsiiyey kubaddaasi waa kan markan fursad fiican xasankaafi axmed gool ayee hanaad cumar isaaq gool ayaa xulka gobolka banaadir ayaa badbaadiyey fursaddaasi halista badneed hirshabeelle rajadii waa iska dileen waxaa ahayd kubad si qurux badan looga soo shaqeeyey difaaca gobolka banaadir ayuu sirqaamiyey laakiin ugu dambeyntii dhammaystir ayuu waayey waxaana ugu dambeyn goolka gacanta ku dhigay gool ayaa xulka xasankaafi waa kan markan xasankaafi bareelkaa xirta mar kale xasankaafi weli waa laga difaacay banaadirna waa iska saartay ugu dambeyntii banaadirna waa iska saartay hagaag markan waa laga saaray mar kale ciyaartina waa ay soo idlaatay saaxiibayaal